Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo magacaabay Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose sugan xilku qaadis ku suubi Gudoomiyihii hore ee Gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Cali Gudoomiyaha cusub ee magacaabay Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose yamay bawseeyaa qaadir Shekh Maxamed Nuur Siidi antii sanagada Gudoomiyaha cusub ee Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose adgareetada xubnaha xafiiska Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed may warbaahinta la wadaagay Agaasimaha Warfaafinta Iyo xiriirka Warbaahinta Madaxtooyadda dowladda Koonfur Galbeed Cali Ibraahim Bandhawow. Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020 ujeedo magacaabis Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose xeer madaxweyne tira nambarkeedu yahay eber 40 kuna saabsan magacaabis Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa koowaad markuu dhageystay talo soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib-u-heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee magacaabis laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020 wuxuu madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed lafdigareen oo xilka Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose u magacaabay Mudane qaadir Shekh Maxamed Nuur Siidi inuu noqdo Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose. Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed lafdigareen uuna saxiixay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gudoomiyaha cusub ee magacaabay Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose iyo hore saas oo kale may sahnagday Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Faysal Maxamed Isa Warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed qasriga Madaxtooyadda magaalada Bandhawow.